سيد ميديا ugu dambeyntii agaasime maxaad kula talin lahayd dhalinyarada danaynaysa in ay bartaan ama ay heer ka gaaraan quraanka kariimka waxaan kula talinayaa hadii quraanka kariimkiihi waa kalaam rabbil caalamiin nabiga sallallahu alayhi wasallam khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu qofka quraanka barta dadkana bara waa qofka dadka ugu sareeya waa sayyidun naas weey ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه برلمان كيسا wuxuu ku shardin jiray in quraanka xafidsan yihiin waan u ololaynhayaa inaan ka shaqeeyo ilaahay idinkiis dadka quraanka xafidsan inay qiimo ku yeeshaan yaani waxa weeyaan maxaafisha dawliga ah oo ay madaxda noqdaan wasiirada noqdaan oo taliyaasha ciidanka noqdaan oo madaxda baarlamaanka noqdaan arintaas iyada marka madaxda wadanka oo dhan farintaas u diraya laano qofkani waa qof amaana leh intooda badanba markuu quraankii barto quraankan wax badan buu xajinaya